Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Hadda marka waxaan sameyneynaa image oo aan ugu talagalnay in alaab aan suuqa kasoo helno kale aan kasoo qaadano example oo imagadaasna ay yihiin image oo macnaha hadda aniga Facebook kasoo qaaday. Kadib aan markaas aan size-kooda iyo waxooda hadda macnaha maadaama uu qaldan yahay size-kooda aan iska saxa kadibna xayeysiintii iyo waxaas aan u sameyn lahayd aan u sameyno quickly kadibna markaas aan aragno haddii oo wax faa'iida markaas ay kaaga soo baxayan because imagekaas hadda anigu xayeysiin oo publish ma sameyn doono because ad account-ka iyo qaabkan wax ku xayeysiin waxa waaye real estate iyo waxaas sameyneynay marka macnaha waxaan rabaa qaabka u sameyn lahayd inaan ku tuso. So hadda marka imagedan waxa waaye image oo waa kuwan wadaag. So waxaan haysanaa 6 image. 6daas image ayaan rabnaa marka inaan kasoo qaadano 6da image oon ku shaqaysanayna inay yihiin oo alaabihi aan soo helhelnay inay yihiin. So marka adiga waxaa laga rabaa tan laga rabaa waxay tahay marka aad imagekaaga aad soo hesho kale ina macnaha saan camal u samaysan kartid oo markaasna isbarbar dhigtid adiga macnaha image oo noocan oo fara badan adoon sameyn maadaama waxaan ay suuqa ka jiraan oo dadka badanaa aysan wax u sameeyaan u sameey dhib ma lahan laakiinse ogow ina macnaha ka fiican tahay inuu adigoo alaabta gacanta ku hayo oo ka hadlaayo waxa ay tahay waxa ay qabato iyo macnaha wax sababta aad ugu baahan tahay ama qofka ugu baahan yahay isku markii waxaas adoo intaas ka hadlaayo macnaha inaad soo geli kartid. So marka hadda imagekan haddii aan meesha noo geliyo oo macnaha size-kiisa aan iska fiirino maadaama oo aan hubin inuu size-ka saxan yahay okay 1080 by 1080 ayaan u baahanahay. So marka haddii aan size-ka aan iska qurxino kadib download image koobaad. Okay, mid labaad daan rabna inaan sameyno marka haddii aan number 2 ga fiiriyo 1080 by 1080 man. So marka 1080 by 1080 waxay ku fiican tahay inaad ka dhigatid saan asigoo oo ku barobay kartaa laakiin saan ka dhigatid waxay ku fiican tahay in macnaha aad raacisid ruleska Facebook u yaalo oo macnaha meel aad kasoo xoogo xayeysiintaada ay ka fiicnaayso qofka aan rule-ka raacayn oo kale ay xoogo adiga ku favor gareynayaan macnaha marka in adiga aad ahaatid qof oo rule-ki la socdo oo haddii 1080 by 1080 loo baahnay iyo haddii loo baahnay 120 by 120 wixii loo baahnayba markaas la socdo. Hadda marka saddexdan image ayaan ku dhaafeynaa waxaan rabaa marka inaan xayeysiintii aan sii dabagalno oon samaysano. So imagekan koobaad haddii aan nooga dhigo kale resize for example in isku qasmaan marabo so kaas resize ka dhigo kana resize 2 kan ugu dambeeyana waxa waaye resize 3 okay. So hadda marka waxaan tegaynaa Facebook waxaan rabnaa inaan xayeysiinta sameyno so campaign kadib waxaan sameynaynaa conversion. So conversion-kana waa fahmi kartaa oo hadda kiya noo socda weli conversion-kiya socda weli oo 14 sii maraya leads-ki oo aan sameynay so kaasoo kale aan sameynaynaa marka waxaan rabaa inaad fiirisid qaabka oo ay u egtaa marka sameynaysid oo marka conversion aad sameynaysid oo kale so ku dhufo conversion kadibna waxaa ka dhigtaa continue. So cashirkan waxa waaye adigoo picture haysto adigoo wixdan soo samaystay meel ku yaalan oo testing sameynayo. So haddii testing aad sameynaysid oo macnaha aad haysan website uma baahnid conversion haddii macnaha aan kugu darataa conversion inaad samaysid uma baahnid because conversion ka sameynaysid waa you have to have pixel kana macnaha waxaan ka wadaa page-kaaga inay ku jirto pixel oo haddii hadda company-gan oo meesha hadda Facebook naftigiisa hadaan ku laaban ama kan pixelka waa taqaanaa kuleyba pixel macnaha waxa waaye in macnaha pixelkaaga ay active ahaato waaye. So hadda maadaama aan pixel haysan adiga waxaa u baahan tahay markaas conversion markaad sameynaysid pixel u baahan tahay laakiin haddii aad sameynaysid oo caadi WhatsApp-kaaga u dirisid traffic
ayaa ka dhiganaysaa. So hadda maadaama aan kan ku dhufanay edit sii wad. So campaign nameka waxaan ka dhiganaa text conversion next. Website. Okay, pixelka marka waxa waaye waa pixelka oo jabron maadaama aan conversion sameynayno. waxaan leenahay leads ama waxaan leenahay content view content sida markaas adiga tahay jeceshaa ka dhigi kartaa. haddii leads aa ka dhigteed macnaa ka fiican tahay view contentka. So maadaama hadda kan uu test yahay oo account-keenana weli yar yahay xataa maalintii 20 baanu bixi karno. marka account-ku inuu Facebook oo daily oo macnaha ay tartiib saas ula socdaan ay jecel yihiin oo maalinta haddii $2 maanta kaa baxayso kale beri $4 kaa baxayso beri dambe $5 beri dambe 6 beri dambe 7 beri dambe 8 10 12 20 marka dambe 3 week markaa joogtid 2 week joogtid 20 aa gaarsiisid haddana tartiibkaas inaa wada 25 ka dhigtid haddana 30 ka dhigtid haddana 40 ka dhigtid content saas camal tartiibkaas saas markaasaa ku gaari kartaa in macnaha daily budgetkaaga uu si fiican in loo bixi karo uu gaaro. So marka hadda waxaan oo dhan waa taqaanaa si loo sameeyo kulligood. So marka waqti kuma luminayno. Next. So waxaan sameynaynaa marka hadda carousel ad. So ku dhafo xagan. kadib hoostaan imaanaysaa meeshaan ayaa ugu diraysaa imijyada. So imijyadii aan samaysanay meesha ka muuqdaan laakiin kuwaan aan gelinayna. So copy meesha ku qoraysaa. Copygaas marka inuu ahaado waa copy aad u qurux badan oo macnaha dadka markaas qancinayo oo soo jiidanaya. So wax yar oo qoraal yar aa ku qoraysaa oo kaba soo qaad dhabarkaaga toosi confidence wax noocaas macnaha oo qofka posture ilaa waxa gidayso waa posture balkan macnaha waxa lagu talagalay inuu dhabarkaaga gadaal ka soo riixo oo markaas xogo yar xabadkaaga uu soo baxo dad xogo tuurta iyo waxaas la diidaya. marka waxa ku qori kartaa waxa rabtid. qor copy paste run daf. haddii marka aan kusoo darno laba kale ilaa adiga 6 loogu talagalay. So mid kale kusoo dar 3 and continue. haddii aad aragtid oo kale for example aan ku siiyo haddii aad aragtid oo kale in macnaha markii aad gelisid videogaaga iyo imagekaaga waxa dhan marka meeshan gashto kale hadda maadaama ay noogu jirto 2 waxaa arki doontaa in macnaha loogahaaga oo meeshan kasoo bixi doono oo communigaaga loogihiisa haddii aad rabtid inaad iska wareejiso oo kale way fiican tahay inaad ka wareeji ka qaadid. So meeshan ay ku qoran tahay add card at the end of collect information geeskeeda click ka saar. waxaan sameynaynaa marka mid kale aan kusoo daraynaa video kale. sorry waxaan ku daraynaa another image. meeshan line kale
website URL-kaaga inuu sax ahaado waaye kan oo pixelka markaas ay ku jirto inuu ku jiro waaye maadaama anaga hadda conversion samaynayno so marka haddii aad fiirisid hadda more time privated kabacdi waxaa soo baxayso nothing because waa ka saarnay kii oo loogaha meesha kusoo baxayay so haddii mid kale aan ku darno haddana ama kan aan ka dhigna video marka adiga waxaa laga yaabaa inaad 3 image camal marka isticmaashid inaad hal mid ka mid ah video ka dhigaysid so marka videoda ka dhigaysid inaad media imaatid waaye oo kadibna aad ku qorto meeshaan video ku dhufatid kadib aad ku dhufatid markaas add select video kadib videoga markaas haddii uu computer kugu jiro kale kala soo bax xaggaas kadib meeshaan waxaa ku qoraysaa headline oo dadka soo jiidanaya markay arkaan oo isbaarada iyo wixii dhan wata aan ka hadalnay haddii aadan xasuusan please go back cashirkaas ku laabo because cashiradaas haddaadna fahmin waxaana dhowti waa ku wareerayay sababtoo waxay tahay wax markaad samaynaysid waxaa fiican inaad 99% adigoo wixii hubo inaad samaysid markay dhowti wax kasoo baxaan oo kale wixii kasoo baxa markaas adiga shaqadaada maaha so hadda maadaama uu mid ku jiro meeshaan midkaas ku jiro kale haddii aad fiirisid oo kale waa mid aan waxba aan u samaynin waa kan so haddii aad ku dhufto kale asiga naftigiisa kadib aan gudaha usii galo and soo qaada number 5 maybe resize markay ku qoran tahay kuwii aan samayna kamid ah kadib ku dar okay asxaabi marka waa aragtiin videoga koowa ka dhigi kartaa haddii aad rabtid oo isleedahay markaas videogan ayaa wax badan soo kordhi karo haddii aad isleedahay video wax badan ma soo kordhi karana markaas waxaad samaynaysaa midka adiga markaas aad isleedahay kana ugu khatarsan ama ugu fiican ayaad ku dhufi kartaa haddii ay conversion tahay marka oo waxaad samaynayso conversion tahay meeshaan oo primary text ay ku qoranta oo kale ayaa laga rabaa inaad ku qortid aad koobigaaga iyo wixii markaas aad isticmaalaysay haddii yihiinba markaas waxa adiga isleedahay isticmaal hadda kan haddii aad fiirisid sidoo kale waxa waaye qoraal hore aan u isticmaalnay marka haddii aan ku dhufano aan fiirino qoraalkaas iyo qaabka kusoo baxayo kabacdi xagan ku dhufo so qoraalkan waa xasuustiin waa qoraalkii aan ugu talagalnay marka guryaha iyo waxa aan kaleynaynin aan sameynaynay koobigaagana mar walba inuu saas camal uu ahaado haddii cursor aad samaynaysid sidoo kale inuu saas usii dheeraado oo dhirkan uu soo gaarmo macnaha iyo haddii macnaha adiga aad koobigaaga uu isla shaqaynayo oo designka uu yahay isbaro what it is waa maxay benefitka muxuu yahay kadibna linkiga kadibna wax yar oo ku saabsan more oo macnaha agency qofka ku qasbaya inuu click dhaho kale saas haddaad u samaynaysid intaas ayaa laga rabaa bis inaad samaysid so markaasna qofka markuu rabo midkuu rabo ku dhufsanaa oo markaas isleeyahay macnaha tana ugu fiican oo isleeyahay productiga markaas ay iibinaysid so haddii oo marka tan ku dhufto kale hadda marka hadda publish dhaho kan aan publish gareeyo waxaa laga yaabaa marka Facebook inay xoogo u fahmaan in wax qaldan aan samaynayo oo kadibna account-kan yar oo aan testing iyo waxaan cashirada ku qaadana aan u talagalnay oo hawada galo oo disable ay ka dhigaan marka waan salaama cashirkan intaan ku egyahay oo cashirkan ugu matalagelin inuu sii dheeraado waxaan ugu talagalaa bis haddii aad rabtid inaad ku ganacsatid oo macnaha bishii aad $200 $300 $400 wixii aad markaas oo xoogaaga iyo time-ka aad haysid aad geli kartid aad ka soo saari kartid e-commerce waa ka soo saari kartaa because suuqa tagaysaa bis suuqa markaad tagto alaabaha markaas ugu shidan magaalada oo aad rabtid oo markaas shaqaynayo oon suuqa ku badnayn meesha ka ogaanaysidna waa xaggan ayaa macnaha meesha ugu fiican oo laga dukaamaystay intaadna macnaha suuqa aadna ku wareeginba ishaad saas ugu xadi kartaa meeshaan wax ka socda dadka kabaan oo kale meesha yaalaan oo kale soo raadsan kartaa boorsooyinkan oo kale haddii ay noqoto wixii ay noqoto markaas suuqa ku cusubba hadda 94 meesha nooga soo baxday haddii aan garaac ku qoro kale waxaa laga yaabaa dad isticmaalaya garaac oo numberka soo wac inay dhahayaan 25 waaye hadda 25kan alaabta marka adiga markaas waxaa ku qoraysaa un bis wixii aad isleedahay waxaas ayay tahay dadku macnaha waxay ku qoraan ilaa alaab inaad gadaa rabtaa ma ogtahay
marka goobtaada oo kale dadku qoraan deliveryga sameeyo gurigaaga wax noocaas ay qoraan marka haddii aad fiirisid 45 waxaa kasoo baxday macnaha dadkan oo kale waa dad guri wax dad u qaadayo that's why aan u isticmaalo goobtaada because marka wax qorayaan waxay qorayaan goobtaada gurigaaga iyo delivery meeshaas sas camal ay qorayaan macnaha that's why ay usoo qabanaya marka haddii aad fiirisid hadda qofkan dharkan waxaan iibinaya qof malab ayuu iibinayaa kan masaajid meel dhiso soo maleeyahay horseed investment kan oo kale hadda waxbuu waxaa macquul ah inaad ku ducaysid duca haddii uu ilaahay ka aqbal lahaa samayn lahaa wax aad iyo aad u weyn laakiinse laga yaabo in ducadii laga aqbalay balse aadan adigu arkahay ilaa had yarto waxaa macquul ah inaad ku okay I don't know qofkan wuxuu iibinayo laakiin se qaabka uu xayisiintiisa u sameeyey it looks like inuu ka sheekeynayo investment iyo wax noocaasa exactly hadda u baahan tahay shaqo waatana qofkana u tegi kartaa waxaa leedahay listen every qof oo kuu keeno oo u baahan waxaan waxaa iga siinaysaa intaas macnaha because adiga haddii aad taqaanid qaab wax loo xayeysiiyo macnaha qaab karata lacag uga samayn kartaa qof waxaysiinayo ayaa waxaa noqon kartaa qof waxaysiiyo ama qof already waxaysiinayo waxaa dhihi kartaa okay haddii qof aan kuu keeno meeqaa ku rabtaa macnaha lead oo kale haddii qof cusub kuu keeno oo kale meeqaa siinaya camal dinar online oo kale hadda ujeedin kamidgan kan jib online shopping okay so cashirkan saan uma sii dheeraahayno kan wuxuu iibinayaa maqaaxida bismillahirrahmanirrahiim okay solar guy okay guys cashirkan intaan ku egayay cashirkan waxaa waa bis inaad macnaha fahamtid qaabka alaabta oo suuqa markaas ku cusub looga raadsado kadibna suuqa markaad tagtay alaabta aad soo heshid adoon lacag ku bixin oona alaab soo iibsan inta Facebook xayisiin gelisid alaabta aad ku xayisiisid marka laga iibsana kadib oo alaabtii lagu dhaho lacagta lagu soo diro kadib alaabta inta doontid aad saas aad ku bilowdid alaabtaas adoon macnaha lacag iyo qarash iyo waxaas dhan aan gelin oo de ugu badato $1 iyo $2 oo Facebook aad kaaga baxo marka waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh